الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال سيدة aad la socotiin Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay magacyo wanaagsan oo loo yaqaano asmaa Allahi alxusnaa magacyada wanaagsan ee Eebbe leeyahay waa 99 magac waa magacyo aan la wadaagin Eebbe keligii leeyahay keligiina mudan yahay waa magacyada Allah lagu baryo lagu tuugo ajri iyo xasanaad looga helo marka dambana oo aakhirana laga rajeeyo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala janno ku geynayo magacyada wanaagsan ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iyo sifooyinkiisaba waxay ka mid yihiin waxyaabaha asaaska u ah qofka muslimka ah inuu qalbigiisa u diyaariyo maskaxdiisa u diyaariyo si uu Ilaahay si toos ah ugu xirmo haddaad doonayso marka inaad magac barato waxaad u baahan tahay magaca ugu fiican waa magaca Eebbe subxaanahu wa tacaala waxaan halkan ku qaban doonaa casharo taxana ah oo aan uga hadli doono magacyada Eebbe weyne oo aan samayn doono sharaxaadyo kala duwan laakiin inta aanan gudagelin inaanu ka hadalno magacyada Eebbe oo aan tafsiir iyo sharaxaad iyo macnayn u samayno waxaan ka sii hormarin doonaa dhowr cashar oo aan u bixinayno casharo horodhaca cashirka koowaad ee aan maanta soo jeedinayno wuxuu ku saabsan yahay muxuu yahay magac maxayse tahay muhiimaddu magaca uu leeyahay qofka bini'aadamka ee noolaha ah waxa aad loo wada og yahay in uurka bini'aadamka waxa ku jira si uu u soo saaro inuu u baahan yahay hadalkaas sida uu u soo baxana wuxuu u baahan yahay erayadaasuna ay isku bedelaan oraah isla socota oo faa'iido la maqlo lana weeleen karo ay ka dhalan karto si aad ugu hadasho erayo isu bedelaya oraah waxaad u baahan tahay waxa taqaano oo aad ku hadasho waxa taqaano si aad u heshana waxaad u baahan tahay inaad hesho cid ku barta erayadii aad u bedeli lahayd oraah lagu hadlo taa marka waxay cabiraysaa muddooyinka iyo isdabayaalka maskaxda bini'aadamka siday u shaqayso ilaa ay u soo baxdo kelmado afka ka soo baxaya oo lagu hadlayo waxay culimadu luqaddu sheegaan magacu inuu yahay shayga ama waxa lagu garto walxaha qiimaha ay leeyihiin haday faa'iido tahay haddii faa'iido darro ay tahay haddii ay khasaaro tahay iyo haddii ay tahay wax nacfi leh sidaa darteed shayga haddaad rabto inaad garato waxaad ku garan kartaa marka hore kaydka maskaxdaada siday u aruurisay shayga magaciisa haddii kale aadan magaca aqoonin waxaa kaa dhumaysa inaydan maskaxdaada ku jirin waxa aad aragtay waxa ay yihiin tusaale ahaan haddii aad seef aragto ood magaca seefta taqaano maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya inay tahay wax dadka dhiba dadka dhaawaca ama dadkaba dili kara waxaa taa ka soo horjeeda haddaad aragto biyo waxaad garanaysaa wax faa'iido leh inay yihiin wax la caba inay yihiin markaad biyaha sii kala taqaano magacyadoodana waxaad garanaysaa webi miya bad miya ceel miya xareed miya barkad miya ka cabaysaa magacyadaas waxay saameyn ku leeyihiin fahamka aad ka haysato waxa aragtay haddii laakiin aadan garanaynin seeftu waxay kuu noqonaysaa wax tuman oo meel yaala oo waxay qabanaysa aan la garanayn haddii aad biyaha aragtana inay sun yihiin inay daawo yihiin iyo inay jiran yihiin ma kala garan kartid saa darteed shayga magaciisu wuxuu saameyn ku yeeshaa maskaxdaadu sida marka hore ay u shaqaynayso waa halka caruurtu ay awood u leeyihiin gacanta midigna inay qalin ku qabtaan gacanta bidixna dhimbil dab ah ay ku taabtaan sababtuna waxay tahay dadka waayeelka ag joogana ay oranayaan ilmahaanu ma lahan garaad iyo garasho uu ku kala sooco tallaabaduu qaadayo iyo waxa uu taabanayo laakiin haddii uu garanayo waxa inay dhimbil tahay uma uu dhawaadeen haddii ay tahay qalinna wixii uu ku qabsanayo maskaxdiisu mar hore diyaar u tahay Eebbe weyne subxaanahu wa tacaala waxa ugu wanaagsan ee uu abuuray waa bini'aadan wuuna karaameeyey oo sharaf iyo karaamo ka duwan uunka intiisa kale ayuu Eebbe siiyey sida darteed Ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بني آدمك وحانو أبورني سيدا أوغو قرحان وحلو توسيو أحسن تقويم سيدا أوغو سي قرحان وحلو توسيو إلهي سبحانه وتعالى وأبوري توسين تاسو حيكتمد إن إلهي قفك علوش هو يدي قليي علوش هو يدي مركا وكسو بحيانا وحو كسو بحيا أساقا وآنا وحبا قرنينين وما شاء الله سبحانه وتعالى وكليهي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نوله بني آدم كأها علوش هو يدي إلهي كو أبوري مركي وكسو ساري وحو قرني مجرين كان لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مركو هلكا جوغوسا وحبا قرنينين إلهي سبحانه وتعالى وحو سيي agabkii uu ku heli lahaa ogaalka ama cilmiga uu ku heli lahaa oo kala ah maqal iyo arag iyo qalbigii waxaas ay ku aruuri lahaayeen oo ku samaysmi lahaayeen waa meesha ilaahay ka dhahay waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun noolihii bini aadamka ahaa markii ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida ugu quruxda badan u toosiyay hooyadii caloosheedana uu ka soo saaray ee uu siiyey agabkii uu wax ku baran karay oo ahaa maqalka iyo aragga ay ka mid ahaayeen wuxuu u baahday inuu awood u helo inuu hadlo wuxuu u baahday inuu awood u helo inuu wax kala sooco sida darteed ilaahay wuxuu siiyey wax kale oo uu baahan yahay si uu awood ugu yeesho inuu hadlo ama inuu wax kala sooco waxaas maxay noqdeen alam naj'al lahu 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu an-najdayn إلهي سبحانه وتعالى وحو أسميه أو أبوري إنه وحكو أركي لها عربكي وكهد لها يبشميه عرب كاستوسين لها وهلكي عرب كهذا الكيس أو مرسين لها ودديسي أيوتاه مركو هلي مركا إنه عربكينا هلي بشميهينا هلي وحو إلهي سبحانه وتعالى أودو سي هدنا إنه هدها وقاضنا يتبت ومريو مودفي عن بقاضيا مودو نكسن بقاضيا adiga go'aankeeda iskale sida aad u leedahay hada adigoo wada maraya xabawdo indhihiiba ilaahay ku siiyay waad aragtay inaad lunsan tahay carabkeena ilaahay waa ku siiyay bishimihiina waa ku siiyay qofka kuugu dhawaad oranaysaa warjidkan aan hayo majidkii saxda ahaaba hadaadan laakiin hadli karin sideebad uu sheegaysaa qofka aad rabto inuu ku caawiyo oo uu ku geeyo meesha aad aad lahayd saadarteed ilaahay subxaanahu wa ta'ala marxaladaasna qofka bini aadamka waa keeno awood uu helo inuu kala socdo jidka uu marayo markii khayrka soo kii sharta markuu ilaahay inta qofka bini aadamka isugu toosiyay ee uu isugu aadiyay abuurkiisii kiisi ugu toosna loo sameeyay agabkii uu wax ku maqli lahaana la siiyay wuxuu u baahday inuu hadlo wuxuu u baahday in waxa qalbigiisa ku jira uu soo saari karo oo uu banaanka u soo bixin karo si uu banaanka ugu soo bixiyo marka maadaama uu haysto agabkii ama adawaadkii uu ku sameyn lahaa inta wuxuu u baahan yahay wax asaga ka baxsan oo u yimaada oo gala oo aqoon u noqda aqoontaas marka ay keento la yiraahdo waxaan magacaas baa la dhahaa waxaan waxaas baa la dhahaa walxahan marka aragto sidaas bay yihiin ka bacdina wuxuu ku dul baranayaa si automatic oo isugu xiran waxaas waxay yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu isku xijiyay abuurka bini aadamka iyo inuu siiyo aqoontii wax u kala sooci lahaa ilaahay wuu isku xijiyay quraankiisa ilaahay wuxuu ku yiri bismillaahir rahmaanir rahiim arrahmaan allama alquraan waxa ku xiga khalaqa al-insaan allamahu al-bayaan ilaahay markuu abuuray noolihii oo bini aadamkii uu sameeyay wuxuu hadana baray garaadkii wax u kala sooci lahaa bayaanku waa waxa wax ku kala saarayso wax ku kala garanayso adiguna aad wax ku gudbin karto oo garashadii iyo garaadkii oo wada socda sida darteed isla aayada markii ilaahay uu sheegay inuu bini aadamkii abuuray waxyaabii wax ku cadeysan lahaa awoodeediina uu siiyo cilmigeedii uu siiyay waxa la baray ugu horeeyay waxay ahaayeen magacyo waxa la baray qorax waxa la baray dayax waxa la baray xidigo waxa la baray geed waxa la baray cir waxa la baray dhul markaas haddana waxa loogu daray waxaan magacyada loo sheegay maxay yihiin maxay qabtaan waa kan ilaahay oranayo khalaqa al-insaan allamahu al-bayaan ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan
والسماء رفعها ووضع الميزان إلى إلهي سبحانه وتعالى وكجاريه والأرض وضعها للأنام. سيدا درتيد بني آدم كمسكحديسو سيدا يقصى يسنتهي مركو عرك فيريو وحا أصاب بحيا وحا يرى هذا السماء سمداس maxay qabataa miisaanka ayay toosisaa markuu cirka fiiriyo wuxuu arkayaa qorax iyo xidigo waxa u soo baxaya waxay taraan xisaab bay taraan waxa dhulka markuu fiiriyo markuu hoostiisa fiiriyo waxa u soo baxaya magac la yiraahdo dhul kadib wuxuu garanayaa wax la fidiyay oo bini aadamka dartiis loo fidiyay sidoo ugu intifaaci lahaa sida darteed magacu wuxuu ku daaweynayaa oo ku sahlayaa inaad garan karto magacaanu muxuu u samaysan yahay markaasaad garan kartaa sidaad ugu intifaaci lahayd naftaada iyo dadka kale aad wax ugu tari lahayd waana madda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isugu xijiyey alkhalqu walbayaan abuurkii iyo wixii aad wax u kala cadaysan lahayd oo ka bilaabanayso magacyadu iyo waxa ay taraan sidaa darteed shayga aadan awoodin inuu hadlo oo waxa ku jira soo saaro wuxuu luminayaa qiimaha uu asaga leeyahay wax aan jirin wax aan hadli karin macnaheedu waxa waaye waa wax aan jirin hadiiba wuxuu hadli karaan waa noole qiimihiisu intee la eg yahay faa'iidadiisu intee la eg tahay waa mowduuc kale waa halka nabiyullaahi ibraahim qisadii dheerayd markii uu ku soo gabagabeeyey waxaan yaa sameeyey markii la yiri wuxuu yiri bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun kan ugu weyn baa falkan ku kacaye bal warsada hadduu hadlayo macnaheedu waxa weeye war waxaan hadlaynin maxaad u caabudaysaan war waxaan adigiiba kuu jawaabaynin oonan awoodin inuu ku dhaho waxaa samee ama uu ku dhaho waxaa ha samaynin sideebaad adiga diintaadii iyo cibaadadaadii aad ugu dhiibaysaa wuxuu markaa nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu tusayaa maadaama uu yahay noole aan hadlaynin waa noole aan wax taraynin maadaama uu yahay noole aan hadlaynin waa noole aan waxba faa'iideynin sidaa darteed marka kale ee waxa laga sabro aysan rajaba lahayn waa marka uu waayo saddexda dareen ee bini aadamka asaaska u ah oo ah maqal iyo hadal iyo indhe waa marka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oranayo summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun saddexdaas dareen ee kala ah aragga maqalka iyo indhihii aad wixii oo dhan ku wada soocaysa haddii lagaa waayo wax rajo oo xataa mustaqbalka lagaa qabi karo ma jiraan waxaan u imanaynaa bini aadamku sideebuu ku helaa aqoonta sideebuu ku helaa cilmiga sideebuu si ku soo gaaraa waxaad garanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in bini aadamka uu u baahan yahay inuu ku abuuray inuu u baahan yahay inuu hadlo inuu u baahan yahay waxa ku jira inay ka soo baxaan wataan ka soo sheekaynay sida aad u hadashana waxaad u baahan tahay waxaad ku hadlayso inaad garanayso magacooda inaad soo baratay waxa magacooda maskaxdaada keedkeedana ay soo saarayso shaygan magaciisa waxa ugu qiimaha badan ee ilaahay soo dejiyay waa quraankuna waa hadalkiina waa hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nala hadlayo oo uunkiisa la hadlayo oo noloshiisa iyo sidii uu noloshiisa u maamulan lahaa uu sharxayo sidaa darteed bini aadamka aqoontiisu waxay ka imaataa sababo fara badan laakiin waxaan ka soo bilaabaynaa asalkeedii meeshay ka timid asalkeedu waa xagee bini aadamku wuxuu ka yimid nabiyullaahi aadam oo uu ku abtirsadaa oo ah noolihii bini aadam ah ee qof ah ee ilaahay abuuray waa nebi aadam marka aqoonta xagee buu ka keenay nebi aadam wuxuu aqoonta ka keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa baray oo wuxuu baray wax allaala iyo wixii aqoon uu uga baahnaa ama agabkii uu baahnaa inuu aqoon ku helo waa hibo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nabigiisa calayhi salaam nebi aadam uu siiyey sidaasna iyadoo dhaxal ah oo luqado kala duwan ah oo afaf kala duwan ah ay ummadaha ku soo gaartay ilaa ay maanta annaga aan joogno ay noogu imaatay waxa ilaahay uu nebi aadam baray waxaa la yidhaahdaa waa magacyo laakiin ilaahay marka uu sifaynayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay cilmi oo wuxuu yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha meeshaan ilaahay wuxuu ku qirayaa inaad walxaha magacyadooda taqaano inay tahay aqoon iyo cilmi waana midda uu ilaahay yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha malaa'igtii
la geliyey tartanka oo la yiri war nabi aadan intaasuu garanayaa bal idinku waxaa taqaanaan sheega ayaguna waxay qireen cilmi ka maqan oo aan la barin inuu jiro oo waxay yiraahdeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana oo ay ula jeedaan cilmigan ilaahay oo namaadan barin saa darteed ma naqaano marka cilmu musamayaat al-ashyaa shayga magacyadooda iyo waxa ay magacyada ka turjumayaan ayagu malaa'iktu laftigooda way qireen inay tahay cilmi oo nabi aadan uga aqoon badan yahay cilmigu marka wuxuu keenayaa inaad awood u yeelato garasho inaad awood u yeelato inaad kala saarto walxaha sida ay isku kala yihiin iyo sida ay nacfi u leeyihiin cilmigaasu waa kan ilaahay bini aadamka ku karaameeyey ee uu uga soocay xayawaanka oo uga soocay waxyaabo fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray sidaa darteed luqaddu waxay asal u noqotay inay tahay shayga ugu weyn ee qofka bini aadamka ama noolaha bini aadamka uu haysto waa meesha culimada qaar ay ka dhahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala koonka wuxuu keenay ilaa 5,000 oo luqadood halkan hadda ugama sheekayn doono luqadaha adduunka la keenay waa imisa yaa waaye cidda ugu horreysay hadasho inta aan la hadlin ka hor maxaa la isticmaali jiray ma tilmaan baa luqad ahayd sidee loo hadli jiray kamana hadli doono qofka bini aadamka sidoo ilaahay u abuuray ee bishimihiisa ilkihiisa wajigiisa iyo la shaqaynta maskaxda sida isugu xiran yihiin halkan hadda ugama hadlayno waxaan ku soo koobaynaa kaliya hadalka iyo magacyadu waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bini aadamka siiyey qofkii u horeeyay oo la baranay inuu yahay abuuna nabiyullaahi aadam calayhi salaam saa darteed luqaddu waa hadal waana tilmaan markay halkaa joogto culimmada luqadu waxay kaloo qirsan yihiin luqaddu inay tahay shayga qofka habfakarkiisa iyo dhiraandhirinta maskaxdiisu samayso marka uu rabo inuu wax sheego inay ka imaanayso asalkeeda luqadda marka ayadana waa tan dhowr jeer sharaxnay oo aan niri waxay ka bilaabataa shayga magaciisa sidaa darteed qofka dhagaxa caabudaya wuxuu u yaqaanaa dhagaxaas ilaah wuxuuna rabaa inuu dhagaxaas caabudo laakiin dadka muslimiinta waxay u yaqaanaan dhagax marka maadaama uu dhagax yahay magacaas aad taqaano maskaxdaadu waxay rajiis garaynaysaa inaan la caabudi karin inuusan kula hadli karin inuusan wax ku tari karin laakiin qofka markii uu dhashayba loo baray sawir meel yaala oo gacan ku samaysa la yiri waa ilaahaagii maskaxdiisu ma qoreyso waxaanu waa dhagax waxna kuma sameynayo halka waxaa ka garanaysaa marka magaca shayga sida ay qofka noloshiisa inta ka dambaysa oo dhan ay saameyn joogto ay ugu yeelanayso sidaa darteed xataa bulshooyinka markii la darsay waxaa soo baxday habkay u hadlaan iyo habkay u sheekeeyaan inay calaaqa la leedahay habkay u fakaraan inay calaaqa la leedahay luqadda ay ku hadlaan jaamacad Mareykanka waxay baaritaan ku samaysay luqadaha adduunka sida ay saameyn ugu leeyihiin qofka bini aadamka fakarkiisa waxaa u soo baxday qofka luqadda Englishka ku hadla marar fara badan inuu ka sheekeeyo markuu qisada sheegayo inuu xoog saaro sababta qisadan keentay halka dadka luqadda Japanese-ka ku hadlaya ay qisada kaliya wariyaan waxa dhacay kaliya bay ka sheekeynayaan ma moodaa inay meesha Soomaalida ugu egyihiin oo Soomaalidu inta badan ka sheekayso waxa dhacay kaliya aysan asbaabta waxaan keenay aysan aad ugu mashquulin waxa kaloo la wariyaa geeska Afrika anaga aan ku noolnahay qowmiyadahooda mid kamid ah inaysan luqadooda ku jirin 150 sano ka hor kelmadda la yiraahdo been taa marka waxaa la yiri waligood been ma sheegin sababtoo ah ereyga beentu waa wax qofku alifay uu diyaariyay dadkana ku dhex faafiyay asagoo og inaysan xaqiiqo ahayn laakiin haddaysan dhaqankaagaba ku jirin wax la yiraahdo been qofku ma alifi karo waxaan jirin saa darteed wuxuu yaqaanaa waxaan waan garanayaa iyo waxaan ma garanayo in wax u dhaxeeya jiraan oo dadka lagu lumin karo oo lagu wareerin karo maskaxdiisu ma diyaarin karto annaga qowmiyadda Soomaalida haddaan nahay waxaa nagu badan inta badan sheekadanada fadhi ku diriradnada meelaha aan ku doonno aan ku sheekaysano sheekadanadu waxay u badan tahay wixii la soo dhaafay waa ku yar tahay waxa soo socda waxaan inta badan ka sheekeynaa waxa soo dhaafay waxa dhacay ma maqashay saasa la yiri ma maqashay
markii la soo fariistay waxa la yiraahdaa maxaa la sheegay wax la soo dhaafay waay way nagu yartaa inaan ka doodno maxaa soo socda 5 sano soo socota maxaa dhici doona liana luqadeena iyo culture-keenan ku jirin sadartii dadka Soomaalida ee ka soo shaqeynaya afka Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga ama dhismaha ummadda Soomaalida sheekooyinka la yaqaan waxa kamid ah ereyga la yiraahdo qorsheyn af Soomaaliga in mar dhow lagu soo daray oo wasaaradii u horeysay oo qorsheynta ah oo dawladda Soomaaliyeed ay sameysay lagu soo daray waxa arintaas si public uga sheekeeyo dadka Soomaalida u sharxay madaxweynihii maamulka Soomaaliland Axmed Siilaanyo oo yiri ereyga aniga afka Soomaaliga ku soo daray markii hore waxa la rabay buu yiri in la qoro wasaaradda jaangoynta waxa la baaray ereyga jaangoynta waxay noqotay waxaad haysato sidaad u maamuli lahayd laakiin qorsheyntu waa wax aadan haysanin sidii aad u keeni lahayd luqadanada Soomaaliga marka maadaama aysan hodan ku ahayn caana ku ahayn dadkuna wada garanaynin inay ka hadlaan waxa soo socdo waxaad arkaysaa qofka Soomaaliga inuu garanayo maanta barito bari dambe asbuuca dambe bisha dambe sanadka soo socda wixii ka dambeeya waa xisaab marka 2 sano 3 sano 4 sano 10 sano meesha carabtu aqdi tiraahdo luqadaha kale oo dhan loo yaqaano erey afka Soomaaliga 10 sano anagu 10 sano aan niraahna sida darteed wax ka badan 2 sano ama 3 sano maskaxdiisa dhiraandhirintiisa way nagu yartahay waa sababta dagaalada ceelasha ay u dhacayaan waa sababta dagaalada sokeeye marar badan ay u soo noqonayaan sababtoo laga ma fikirin waxaan sidee uga baxnaa waxa laga fikiray duruufta markaas aan ku jirno sidii aan la dhaxnoolaan lahayn sida darteed luqaddu asalkeeduna yahay magac waxay saameyn ku leedahay sida aad u fakarayso waa meesha aan rabno marka inaan ka soo galno inaad Allah subhanahu wa ta'ala magaciisa taqaano waxay saameyn ku leedahay sida aad u rumaynayso waxay saameyn ku leedahay waxaad u baahan tahay waxay saameyn ku leedahay iimaankaaga waxay saameyn ku leedahay qiimaha iyo qaayaha iyo weynaanta qalbigaaga iimaanka inta uu leeyahay ku jira sida darteed markaad maqasho Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس ereyadaas macnaha ay sameynayaan noloshaada saameynta ay ku yeelanayaan waxay ka imaanaysaa ereyadaas mugooda iyo miisaankooda sida ay qalbigaaga iyo jirkaaga iyo maskaxdaada ay u galeen hadii marka aadan garanaynin Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa hadii aadan garanaynin Allah subhanahu wa ta'ala sifooyinkiisa waxa hoos kaaga dhacaya sidee baad Ilaahay u bariyaysaa sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa markaad u baahan tahay dambi dhaaf sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa inuu ku xoojiyo markaad ugu baahan tahay inuu ku xoojiyo sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa markaad u baahan tahay inuu ku irsaaqo sidee baad ugu sheeganaysaa markaad rabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu hodan ka dhigo sadarteed magacyadu waxay ka saameyn doonaan marka aad barato Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa wanaagsan ee tira badan iyo sifooyinkiisa wanaagsan markaad barato waxay ku sahli doontaa inay naftaadu hesho sida ugu quruxda badan aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ku weydiisanayso casharka soo socda baana uga hadli doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacyadiisa in la barto waxa ay u tarayso qofka muslimka ah